madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo kulankan uu la qaatay diblomaasiyiintan ka socda dalka Turkiga oo ah wakiilka dawladda Turkiga u qaabilsan Soomaaliland iyo ku-xigeenkiisa waxa si qoto dheer lagaga wada hadlay iskaashiga ka dhaxeeya labada dal ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka Turkiga iyo sidii Turkigu uga qayb qaadan lahaa gurmadka loo fidinayo dadka reer Soomaaliland ee abaarta kulul ay hayso iyo sidii baasaboorka Soomaaliland loogu geli lahaa dalka Turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxa kulankan ku wehelinayay wasiirka tamarta iyo macdanta wasiir dawlaha arrimaha dibadda xogayaha gaarka ee madaxweynaha iyo afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland markii uu kulankaasi dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Cige Deyr oo tafaasiil ka bixiyay qodobada kulanka lagaga wada hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxa maanta xafiiskiisa ku soo booqday wakiilka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliland Ali Noyan Joshkun waxa kaloo kulanka madaxweynaha ku wehelinayay ku-xigeenkiisa xagga xukuumadda wasiirka macdanta iyo tamarta Xuseen Cabdi Ducaale iyo professor Muxil oo ah wasiir dawlaha arrimaha dibadda guud ahaanba madaxweynuhu wuxuu kala hadlay wakiilka Turkiga Soomaaliland u fadhiya arrimaha abaaraha si dawladda Turkigu ay muhiimad gaar ah u siin lahayd maadaama abaartu ay tahay meeshan Soomaaliland meeshii ugu soo horeysay waxa kaloo lagala hadlay guud ahaanba xagga dhaqaalaha iskaashiga iyo maalgashiga sidii Soomaaliland iyo Turkiga ay wada shaqayn lahaayeen iyo waxbarashada oo iyadna kaalin muuqata dawladda Turkiga ay ka qaadan karto waxa kaloo lagala hadlay sidii dokumentiga qaranka Soomaaliland uu leeyahay dawladda Turkigu ay ugu bixin lahayd fiisaha wakiilka dawladda Turkiga u qaabilsan Soomaaliland oo dhawaanun xilkan loo soo magacaabay Ali Noyan ayaa yiri Consul General of the Republic of Turkey to Hargeisa Somaliland. I'm very happy to be here. I received a very warm welcome over here. waxaanu madaxweynaha Soomaaliland ka wada hadalnay kobcinta xiriirka soo jireenka ee u dhaxeeya jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka Turkiga iyo sidii loo adkeyn lahaa Ridwaan Caydiid Ismaaciil iyo Cabdilaahi Cali Suudi telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qasriga madaxtooyada Soomaaliland